بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وبرنامج كان هو تصالين وبرنامج كي توسنتا يا تلمانتا وبرنامج كان معلم بس كدول تاغنو كنا تلمانو كنا توسنو qodob khalad in oola muuqdo oo dalkeena dadkeena qarankeena iyo bulshadeena laga galayo toddobaadkana barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa siyaabo kala duwan oo uga hadli doonaa hadal maalintii shalay ka soo yeedhay Suudaanka guud ee beeraha Subeerawal hadalkaas runtii ahaa mid aan waqtigan loo baahnayn mid aan xilligiisii joogin goobtiisii joogin xilligiisii joogin wuxuu hadalkaas ahaa hadal aan runtii ku habboonayn in afka laga maqlo nin suldaan ah in waliba afka hadal laga maqlo nin suldaan u ah madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan ognahay in doorashadii Soomaaliland ka dhacday ee 13 November dhacday ee dalkeena ka qabsoontay ay ahayd doorasho la xaday doorasho lagu shubtay doorasho la dhacay doorasho dhiig inooga daatay doorasho markii qudda la iskaga jari gaaray ee dhiig iyo beelaha isaaqo gam isku noqdaan istaagtay oo xisbiga tartanka galay ee ummaduna arkaysay inuu guuleystay uu tanaasulay tanaasulku muu hayn mid baqdan tanaasulku mid cid xoog xaqlida laga tagaman tanaasulku wuxuu asadu gudoomiyaha xisbigaas musharaxana inoo sheego afkiisa inaga yidhi mid danta dalka iyo dadka uu u fiiriyo eegay waxa uu yidhi markii soo taagtay in aniga rabitaankayga dadka uga noqdo lagu go'o aniga rabitaankayga labada fudud waan uga tagaya saaseen waxay maslaxad qarankan iyo dalkan lagu badbaadiyo xaaladda dadka waxaan mid ku diidanayn in Muuse Biixi markay madaxda noocaas ahayd uu mar walba ciyaariyo role iyo door ah inaanu ahayn madaxweyne dalkan doortay saasaheed ba ka biyo xarkad waa la isku tuuray hadana bulsho badani marka wadciga maanta lagu jiriyo duruufta dalka taagan iyo halka muddo tahay waxa eegayso liqaysay in doorashadu loo daayo wixii dhacayba dhace in maanta hara looga socdo in ummadaas si loo badbaadin lahaa loo sameeyo bixin lahaa la eego in si dalkan iyo dadkan la isugu eekeyn lahaa la eego dad badani oo maanta maangali taas iimaanka ku hayeen waxa runtii la yaab noqotay ummadda inteeda aqliga san inteeda indhaha fiican inteeda gaarashada dheer leh ka yaabisay in suldaanka Subeerawal oo ah suldaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ah inuu burcad dhexdeeda kaga baano oo uu yiraahdo haddaanu jeegaanahay habar jeclay inaga iyo beeshan Habarawal haddaanu jeegaan isku nahay bariga hore magaca jeegaanu bay naga dhaxaysay hadda tolnimaynu yeelanay hadda inaan yaabihii bay noqonay inaan yaabtigii bay noqonay inaan iyo walaalkii bay noqonay masab cusub baynu samaysanaa hara loo lahayn waxuu ninkaas ku tusaya in qayb ka mid ah bilaha Soomaaliland markaas oo uu iyaga yahay qolada jeegaantahay uu Muuse Biixi uu iyagu madaxweyne u yahay inninka iyagu ay doorteen xaaraan iyo xalaal baa ku helaane inninkaas uu iyaga matalo waxay taas ku tusaysaa markaa soo kicinaysaa eel nabdoon u tahay bulshada reer Soomaaliland boqolkiiba 85 ka ahayd ee xisbiga isbeddeldoonka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dimuqraadiga wadana codkooda siisay markii ay arkeen maslaxadda dalkan iyo dadkan khatar ku jirto hankoodii ka tanaasulay in sanka laga marmarinayo kursi xaaraan ah oo la dhacay oo la boobay oo aan xalaal ku iman in sanka laga marmarinayo oo reero istusi in xoog iyo baadil wax ku qaadeen haddana wali ay isugu baanayaan oo isugu habar wacanayaan oo isugu laab garaacayaan isugu hambalyeynayaan magaalada Burcad dhexdeedu ay leeyihiin waa inaga jeegaana inaga isku reera inaga Muuse maanta inaga yahay hadalkaas waa hadal ma garato waa hadal maanta Soomaaliland isku dili kara waa hadal dadnimadan iyo dalnimadan haysan burburin kara waa hadal ummadda kala kaxaynaya وهذا المركز Soomaaliland kale laga tagay darafeedii koonaha taagan laga tago waa hadal isaaqa kooban ee Soomaaliland dhexdiisa jooga ee maanta aan Soomaali xaba u ogolayn ee jilbaha yar isugu ururaya ee boqocada yar 10 sano afarta jaak kaga fidayay maalin dhinac laga soo didinaya maanta kala kaxaynaya marka maanta Hargeysa Burco lagu kala tago de meel kale isaaq ku fidi kara ma jiro Soomaaliland baa jiri karin reerni ma jiri karin tolni ma jiri karin wada dhalashan jiri karin dadni ma jiri karin hadal maanta meeshii yaalay muhayn maanta Muuse Biixi waxa looga fadhiyay wixii dhacayba dhacay xaraan iyo xalaal wuxuu ka helay kursiga ful inuu nabaradii iyo aafooyinkii iyo dhibaatooyinkii iyo masaa'ibkii doorashadii la xaday ee la boobay ureysayna soo martay ay ka tagtay waxa loo helo in 5 sano uu kursiga ku magacaaban yahay uu sameeyo dariiq isaguna ku nabad galo oo uu suura gasho ummadan ku xukumo dalkan iyo dadkan ku kala badbaadiyo ummadana wanaag iyo samoogo horseedo dariiq noocaas ma la sugayay وحرنت أضلوا يا بهاد إن سلطان كيسي برعانتي وسكده تاجوس قويه أي معوس برعاك قاعد على معوسته رقم ما غشته ما ذكر على معوس إن برعاك قاعد على أو ويدا هذا هياي لقى جور شيء عن ما دي يطلع ما ينون هاي يلا اسكت طلع سنة صمها صو رقم حنيها على طابنا يا صمها صودت كلو سومالي لنا وأركيين عدد كودي يدور شو ذي الحظي أو لبابي أو لدعي أيلا حنيها طابنا يا سو إن دد اللي يسكت اللي دوني مايو بلايا اللو بان يا صمها
سلطان كرنت هذا المناسبة موهين هذا المانت وقت جيسي شوقي موهين هذا البريت ولا هذا موهين هذا الأف سلطان كصبح مرة واحد موهين مدحوني مصبيح عبدي dalkan iyo dadkan ilaahay waa ogeyn oo ku soo baxay waxa xisbiga la tartamay reer lama tartamin qabiil lama tartamin in ummad lama tartamin xisbi baa la tartamay cod ka helay min koona ilaa koona Soomaaliland markii dambena arkayay oo shaahidu lilaahi in codadkiisii sanaduq koobiye laga buuxiyay oo lagu shubtay xisbi dalkan iyo dadkan u tartamay la baxay inuu reerkiisa xisbi reer ku xuquuqiyo maanta ma ahayn إن ما تنو عضونا وها سميها دو ضميرو دل كدونيو إن سلطان كيس وحاسو كصبر قمام ما هين waxay Soomaaliland maanta runtii kursi kale nabad galaysa oo kursi kale tagaysa oo shanta sano socday ku taabageli kartaa in kabiya xarkad waa la isku turay nooca tay lagu wado inka maanta in xalaal iyo xaraan markuu doono kursiga ku fuulay ku fadhiya la iska rabtaago in la riixo in hareeraha laga maro in inta la iska liqoon la socoto Soomaaliland taas ku socon kartaa laakiin Soomaaliland loo kala abtiriya oo reer kale u dhaxbaana oo reer qabaa'il iyo nasabiyad sameeysta socon mayso waxay noqonaysaa in dalkan la isku dilayo iyo in dalkan la isku dilayo waxay noqonaysaa in beelaha kooban ee darafyada inaga xiga ee beel walba raja u laacayso ee beelba meel xanjo ugu dhagsan tahay ee la isugu qasbiyay la isugu durban garaacayay Soomaalilandnimada marka gudaheedii lagu kala dhex tago xeerada gunteedii marka la isku dilo waxa darafyada koonaha saarnada kama loolanayaan banaanka u dhacayaan dad hortood bay dhacayaan maanta albaabada noocaas waxa garaacaya maxayday in musabixi waxa garaacaya maxayday suldaankiisi waxa garaacaya habar awal waxa uu ku baanaysa oo ay afka taagaysa waxaan maanta looga fadhiin dalkan iyo dadkani waxay u baahan yihiin cid ka korisa qabiilnimo waxay u baahan yihiin cid reernimo ka kaxaysa waxay u baahan yihiin cid qarannimada ku hagta maanta hadalka ninka ka soo yidhaahdo Soomaaliland lagu fadhiyo maha maxaa u yaala maxay tahay talaabada maanta tan taala ee runtii bulshada ku kala bogsan karto ku raacay karta waxa weeye musabixi xukuumaddiisa inay wax ka qabato waxaan maanta maqlay wasiirka wasaaradda warfaafinta sultaan damba ogolaan mayno oo maxaad ogolaata sawkankii sheegaantu baraadhiisa kaga baanaya reer barunahay oo reer bar la mudoobaya telefishinka baa laga sii deynaya dawladdu lahayd oo warbaahintii dawladda laga sii deynaya oo hay'adihii dawladda qoraya oo nasabiyad baa la isku sheeganaya yaad markaas salaadiintaadana siinay hadaleen warbaahinta ka hadalba hadhow doonaya waa kuwee waa kuwa sumar waa kuwa sheegandiidka markaa maanta Soomaaliland san sheegay dariiqa lagu kala badbaadin karaa وإنه محاذين وها ما تنا حكومية إنه هرتاجن طبق الله ظروف فربنا بدل كان رياله تنا فربنا أو شيء مثل وكسوق عن تجارينسا هدي تنا قبلية وجودها نحن كد العاني راعيان ويدلان ما تسمى لنا الوكالتية وحنوق نهاي إن مملكة بطلان يدرك في حلقة إن تقال عن داسيا وأن حلقة سلتشوجين لقوق عطي وحوقتين خلاف يمرك ونحن كابوري وحوقتين وتغيير شيئا تستفادوا ما ترك سلادينا والرئيس المال دحدا caanka ayaa iyagoo maxay ficiltamaya oo waxa uu saxda hortooda lagu dhaqdhaqaajinaya ay dhibayso ku baaqay reer hebelow iska celiya labada reer hebel waana imanaysa way maxay iman weeday dawladnimada laga talaabsaday yaa ka talaabsaday musabixininkii inuu xiga ka talaabsaday fi suldaankiisa haba ka talaabsaday kushal laha coodi doon ba ka talaabsaday kula reer hayso barba cod ka talaabsaday marka ayaa cid kale oo aan maanta xukumayadu gacanta ka maamuli kara يا مامول كرا منك ريركيس قمن كري واي إدتكيس الله اللي كري ويا أي Soomaaliland كلام مدحون نون كرا ما أنت طلابة الله تعالى يوم ده Soomaaliland نيجي سحوي طلابة دي فعل كا الحكومة ما أنت تشتري كم صور فديا وأضيقة معه سكر عليك قاضو كل بتي وما أنت طلابة أي نقطة هذو كأمسية هذو احترامه تاسو بنقص من Soomaaliland كسرعة وارك تونتر ذلك يرتعب بدن باكلي hanaanka tacab ee dimuqraadiga ee adduunka naga gacan siinayay ee deymaha dunida nasiisay aan ku dhisaynay ee mucaawanada ku socday ku talday waxaan doonaynay maanta halkan la taagayeen wax badan kor ka maro waxaan doonaynay in Soomaaliland maanta nooca ka meeqaam sareysan aragno in Soomaaliland la wada leeyahay aragno in Soomaaliland uu qofku sanduuq cod ku rido kadibna cod ka aamino kadibna halka ka baxo aragno لكن نقول ميسو سيو صعوتابين أرجنا وحلا استوصيا أو لسكوها يستا إن قويس كاري حراني حلال متي وحبوبان أيوكو سمسكر عيد الدنيا يعني مدحونا كديان كران كدمنا كديان كران وحيوكو هكا وقف فريق مدحونا وياي تصويح نقول إسا إن هنان كقرن الشرعيات يحب نسمت كدول دين اللي قدوليو talaabada maanta xukuumaddu qaado waxay noqon doontaa dariiqa mustaqbalka dheer yaala ee cid walba arki doonto toqon buu sheesay tabal lagu dilaa maanta talaabada musabixi qaado ay noqon doontaa in loogu jangooyo waxaan bulshada reer Soomaaliya nabadda jacayl ugu baaqaya dalkeena aanu ilaashano وين ognahay
waad ogtahay muwaadin waadna waad ogtahay oo ka jeegaantaaba oo ka jeegaan diidkaaba oo qof kasta og inaan dalka doorasho xalaal ka dhicin saasoo ay tahay waxa marka qaar gafka loo liqaabay ma waxa gafta loo naqasan dadka gobolkan waxaanu gafka iyo khaladka u liqaynaa inaanu goobada kooban in wada joogno nabad kursi joogno inuu wixii rag fara badan u god galeen aan maanta gacanteena ku burburin waxaan ugu baaqaynaa ugu celinaynaa tallaabadaad ka qaada ee aad martaa ee dariiqaad maanta ninka ka qaada iyo go'aankaad ka soo saartaa iyo aragtidaad ka bixisaa iyo noocaad la dhaqantaa musabixow waxay noqonaysaa dariiqa dheer ee mustaqbalka ku horyaala tabtaas ayaan ugu baaqaynaa nabad iyo baraare ayaan rajaynaya Soomaaliland sharka kuwa iskaashanaya sharka kuwa balada raadinaya sharka kuwa ummadeynta kale iska baahaysanaya sharka kuwa baladoonka waynu doonaynahay geesaha iyo baalaha ka mariyo intaan barnaamijka kan ka xoog isku meelno barnaamijkeeni toosinta falanqaynta maanta intaas inoo weeyahay tan iyo go'aantida nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh